innaga oo weli ku guda jirna xogihii qarsoonaa ee habraacyada doorashada ee u gaarka ahaa gurbiya online waxaan maanta isdul taagi doonaa hubinta ergada tirada sida lagu waayo xubinnimada bedelida ergada cabashada ka dhanka ah ergada iyo arrimo kale oo xasaasi ah hase ahaatee inta aynaan bilaabin xogaha muuqaalkan fadlan bogan like saar una sheergaree saaxiibadaada habraacyada mabaadi'da guud ee ergada doorashada 1 tirada ergada doorashada kursi kasta waxaa la isku raacay in laga dhigo 101 xubnood oo laga soo xulay jufooyinka isla leh kursiga waxayna dooranayaan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta golaha shacabka 2 liiska erga kasta waxaa loo soo gudbinayaa oo xaqiijinaya guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka waxaana ku kormeeraya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal 3 ergada waxaa ka reeban in ay codkooda ku bedeshaan dana shakhsiyadeed ama mid dhaqaale cidii lagu helana waxaa laga qaadayaa tillaabooyin sharciga waafaqsan 4 fududeynta adeegyada ergadu u baahan yihiin waxaa si wadajir ah mas'uul uga wada ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka habraacyada u gaarka ah shuruudaha ergada doorashada 1 qof kasta oo noqonaya ergo waa inuu buuxiyaa shuruudahan waa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka tirsan jufooyinka kursiga isla leh b waa inuu yahay qof miirkiisu dhan yahay c waa inay da'diisu aysan ka yareen 18 sano jir d waa inuusan noqon musharax u taagan labada aqal ee baarlamaanka midna waa inuu fahamsan yahay habka codbixinta iyo mas'uuliyadaha doorashada f waa inuusan haynin xil siyaasadeed g waa inuusan wax xiriir ah la lahayn argagixisada habraacyada u gaarka ah qaab dhismeedka ergada doorashada 1 odayaasha dhaqanka iyo wakiilada bulshada rayidka ah waa inay u soo gudbiyaan liiska ergada doorashada xafiiska guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka 2 liiska ergada doorashada waa inuu ka koobnaadaa magaca qabiilka ama jufada kursiga isla leh magaca ergada oo afaran magaca hooyada oo saddexan jinsiga taariikhda dhalashada magaalada ama tuulada uu degan yahay qaybta wakiilka uu ka socdo dhalinyarada ama haweenka macluumaadka lagala xiriiri karo lambarka taleefanka ama ciwaanka emailkiisa iyo tilmaan cadeynaysa in kursiga uu yahay mid guud ama mid u xiran haweenka 3 liiska ergada doorashada waxaa saxiixaya odayaasha dhaqanka iyo wakiilada bulshada rayidka ah ee u xilsaaran magacaabista ergada doorashada 4 guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu ku kormeerayaa fulinta qodobadii aynu soo sheegnay habraacyada u gaarka ah ansixinta liiska ergada doorashada liis kasta oo ergo ah waxaa hubinaya guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka wuxuuna xaqiijinayaa 1 in ergo kasta oo ku jirta liiska ergada doorashada ay ka tirsan tahay qabiilka ama jufada isla leh kursiga in liiska ergada doorashada ee kursi kasta ay ku jiraan ugu yaraan 31 haween ah iyo 20 xubnood oo dhalinyaro ah guddiga hirgelinta doorashada heer federaal wuxuu dib u eegis iyo hubin ku sameynayaa liisaska la soo gudbiyay ee ergada doorashada guddiga hirgelinta doorashada heer federaal waxa uu sidoo kale xaqiijinayaa in dhammaan beelaha ama jufooyinka wadaaga kursiga lagala tashaday oo ay ogol yihiin 4 haddii liiska la soo gudbiyay ee ergada doorashooyinka uu buuxin waayo shuruudaha habraacan odayaasha dhaqanka iyo wakiilada bulshada rayidka ah waa inay dib u waafajiyaan qodobada iyagoo kaashanaya guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka habraaca diiwaangelinta ergooyinka ka hor codbixinta 1 ergada doorashada waa inay si shakhsi ah isu diiwaangeliyaan codbixiye ahaan iyadoo la raacayo habraacan iyo jadwalka uu dejiyay guddiga hirgelinta doorashada heer federaal 2 odadhaqameedyada iyo wakiilada bulshada rayidka ah ee magacaabay ergada doorashada waa inay mid u xaqiijiyaan xubin kasta ee ergada ka midka ah waa inay sidoo kale liiskana saxiixaan 3 ergay walibana waxaa la siinayaa aqoonsi erganimo guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ayaana ka hubinaya habraaca bedelida ergooyinka haddii ergey dhinto ama aysan ka qayb gelin karin doorashada ama uu rabo inuu iska dhaafo erganimada sabab kasta odayaasha dhaqanka iyo wakiilada bulshada rayidka ah ee soo magacaabay ayaa si waafaqsan qodobada habraacan magacaabaya qofkii bedeli lahaa 2 qofkii raba inuu ka tanaasulo erganimada waa inuu si shakhsi ah ugu soo gudbiyaa tanaasulkiisa guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka isagoo buuxinaya foomka ka laabashada erganimada 3 guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa ku kormeelaya fulinta qodobkan habraaca cabashooyinka jufadii loo diido inay ka mid noqoto ergada doorashada waxay soo gudbin kartaa cabashadeeda si waafaqsan nidaamka cabashooyinka doorashada habraaca kooramka codbixinta ergada wuxuu ansax noqonayaa marka ay joogaan ugu yaraan 71 erga ah ku dhaqanka habraacan dhammaan habraacyadan ayaana waxay dhaqan gelayaan marka uu ansixiyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal